It's a great honor to be participating in this timely 14th extraordinary session on silencing the guns at the African Union. I welcome the in-depth and encouraging reports on the peace and security situation in Africa and a status update on implementation of the African Union theme of the year 2020, silencing the guns, creating the conducive conditions for Africa's development. sharaf weyn ayay ii tahay inaan ka qayb galo munaasabadan kalfadhiga 14aad ee shirka 14aad ee aan caadiga ahayn ee midowga Afrika oo ciwaankiisu yahay dhigidda qoriga. waxaan soo dhaweynayaa warbixinta qotada dheer ee dhiirigelinta leh ee ku aadan xaaladda nabadgelyo iyo amni ee Afrika iyo sidoo kale cusboonaysiinta dadaalada hirgelinta ciwaanka shirka sanadkan ee midowga Afrika 2020 oo ah dhigidda qoriga iyo abuuridda jawi ku habboon horumarinta Afrika. ciwaanka sanadkan waxa uu si cad ahmiyad u siinayaa muhiimadda ay leedahay isku xirnaanta amniga iyo horumarka maadaama aanay mid la'aantiis macquul ahayn in la gaaro midda kale. marka aan dhigno qoryaha si dhaqso leh oo wax ku oolahna u xallino khilaafaadka oo aan si hufan uga wada shaqeyno ka hortagga colaadaha waxaa kadib suurtagal inoo noqonaysa inaan gaarno horumar waara. muhiimadda suurtagelin karta horumarta bagala iyo qorshaha midowga Afrika ajendaha 2063 iyo sidoo kale yoolka qaramada midoobay ee horumarka waara qorshaha horumarinta qaran ee dalkayga dhammaan waxa aas u ah nabadda. guud ahaan qaaradda Afrika khilaafyo badan oo taariikhi ah ayaa la xalliyay balse waxaa nasiib darro ah in kuwa cusub soo ifbaxayaan. Peace and security challenge of Africa is one that has a crippling effect on our people's opportunities. While Africa is no longer the hopeless continent, it has not totally succeeded in silencing the guns that made it appear such a failure to the rest of the world in recent history. Indeed, caqabadaha nabadda iyo amni ee Afrika ka jira waa kuwa saameyn ku yeeshay bulshadeena isla mar ahaantaana cuuriyaamiyay fursadihii ay dadkeenu heli lahaayeen. inkasta oo Afrika aysan hadda ahayn qaarad rajabeel ah haddana si buuxda uguma aanan guuleysan inaynu dhigno qoryaha taasi oo ka dhigan inaan ugu muuqano dunida inteeda kale kuwa aan ka dhabaynin himiladoodii. xaqiiqdii isku dhacyada meel kasta oo ay ka jiraan qaaradda Afrika waa kuwa duruufo gaar ah ku yimaada sababo kala duwan leh kuwaasi oo xitaa mararka qaarkood ay adag tahay in la xalliyo haddii aan xal loo helin sababaha asaasiga ah ee markii horeba dhaliyay. si kastaba ha ahaatee haddii aynan yeelan iskaashi togan iyo wada hadal suurtagal ma noqonayso in laga hortago ama xal loo helo isku dhacyada. In Somalia, we are working very hard to silence the gun through our sustained and determined efforts against international terrorism in the form of Al-Shabaab. Somalia's brave armed forces are working closely with their AMISOM counterparts. marka laga hadlo dalkayga Soomaaliya waxaan dadaal xoogan ku bixinaynaa sidii aynu hubka u dhigi lahayn iyadoo aynu marayno wada shaqeyn iyo isku duubni aan uga wada hortagayno argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab. ciidamada geesiyaasha ah ee Soomaaliyeed ee wada shaqeynta la leh dhigooda midowga Afrika ee ku midaysan halka ujeedo oo cad oo la isku raacsan yahay midaasi oo ah sidii xilliga ugu horeeya ee macquulka ah ay mas'uuliyadda amniga si buuxda uga wareegi lahaayeen ciidanka qaranka Soomaaliyeed midaasi oo horseedi karta in la abuuro jawi ku habboon xaqiijinta amniga oo horseed u noqon karta in dhammaan Soomaaliya iyo gobolkaba hubka aan iska dhigno si aynu horumar u wada gaarno. waxaynu horumar ka sameynay xaqiijinta yoolalka muhiimka ah ee qorshaha xilliga kala guurka ah ee Soomaaliya annaga oo ku kalsoon in qorshahan la gaari doono iyadoo ay jirto guulo laga gaaray la dagaalanka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab iyadoo ay weli Soomaaliya saaran tahay cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay midaasi oo caqabad ku ah dadaalkeena. haddaba si caqabadan looga gudbo midowga Afrika iyo xubnaha qaaradeena ku metela golaha ammaanka qaramada midoobay waa inay hadda si ka ahmiyad weyn sidii hore uga shaqeeyaan sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ama si ay naga caawiyaan helitaanka habkii la inooga qaadi lahaa cunaqabateynta si aan u awoodno inaynu difaacno dadkeena
si ka xooggan sida ay hadda tahay isla markaana aan uga qayb qaadanno xasiloonida gobolka tan qaaradda iyo adduunkaba si aynu dadaal amni oo wadajira u yeelanno xilliga laga soo kabanayo saameynta dhaqaale iyo bulsho ee cudurka COVID-19 ku yeeshay dunida oo dhan. In all matters of peace and security, it's a fundamental to seek peaceful political solutions through dialogue and mediation, as envisaged by the UN African Union framework for enhanced peace and security. It's also paramount to address the root causes, which often are many and complex. dhammaan arrimaha quseeya nabadda iyo amniga waxaa lagama maarmaan u ah in loo maro xal nabad ah oo siyaasadeed iyadoo la adeegsanayo dhexdhexaadin iyo wada hadal sida ku cad habraaca qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee sare u qaadida nabadda iyo amniga. sidaas daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah in la xalliyo sababaha aasaasiga ah ee colaadaha dhaliya kuwaasi oo badanaa ah kuwa xagla badan leh. Soomaaliya marka aan ka hadlo waxaan si adag uga shaqaynaynaa dadaalada dib u heshiisiinta innaga oo ku howlan dhamaystirka dib u eegista dastuurka si aynu u xaqiijino siyaasad loo dhan yahay cadaaladda sinaan iyo abuuridda fursado dhaqaale si aynu u sii adkayno nabadgelyadeenna iyo xasiloonida. mudanayaal iyo marwooyin dalkayga Soomaaliya waxaan aad u fahansannahay xanuunka ay leedahay colaadda iyo wadada dheer ee dhibka badan ee ay qaadato in laga soo kabto midaasi oo aan marnaba sahal ahayn. waxaan u baahannahay inaan diiradda saarno dadaalkeenna heer gobol iyo heer caalami oo aan ahmiyad ku siinayno sidii aynu u abuuri lahayn jawi suurtagelin kara horumarka Afrika. mahadsanidin dhammaantiin. We need to focus our continental and global energy on these priorities, as they are key to creating the conducive condition for Africa's hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom.